بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. دين إسلامك ودين كهذا wax walbo insaanka nafci u leh ama wax walba oo caalamka oo dhan nafci u leh. lidalika ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku sheegayaa diin dhammaystiran inay tahay. ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka kariimka ah, alyawma akmaltu lakum diinakum. aayaddaasi qaybta hore waxaad ka fahmaysaa ilaahay wuxuu leeyahay diintu waa idiin dhammaystiray, wax walbo noloshiina nafci idin leh diintaad ka helaysaan. laba, waxaa jiro 5 arrimood oo diinta ay ilaaliso. waxaa ugu horeeyo nolosha. nolosha marka la marka waxaa loola jeedaa wax kastoo noolo ah in la xurmeeyo. lidalika noolaha insaanka ugu sharaf badan, walaqad karamnaa bani aadama. waxaa markaasi insaanka uu ka faa'iidaysanaya wixii nool. waxaa ka mid ah xoolaha la cuno oo kale insaanka ka faa'iidaysanayo. xoolahaas la cunana waxay ku nool yihiin dhirta. dhirta waa qayb ka mid ah noolaha. lidalika ihtimaam gooni ah, islaamka ihtimaam gooni ah ayuu dhirta siiyey. nabiga calayhi salatu wasalaam xadiis ayaa wuxuu leeyahay man axyaa ardan mayta, qofkii nooleeya dhul dhintay xoloja dhul geeda aan lahayn, qofkaasi nooleynta ama dhiraynta uu dhiraynayo dhulkaasi uu geedo uu ku beerayo ayaa lahu fiiha ajrun. geedahaasi uu ku beeray wuxuu ka helayaa ajr iyo thawaab. laba kaloo xadiis oo muhiimaan sheegayaa. xadiis waxaa jiro oo cajiib badan oo dhirta iyo meelaha ay gaarayso ka hadlayso in 3 makhluuqaad ilaahay abuuray ee muhiimka ah oo marka laga reebo malaa'igta ilaahay subxaanahu wa tacaala inay dhirta ka faa'iidaysanayso. xadiis rasuulka wuxuu leeyahay calayhi salaam, man gharasa gharsan, qofkii beera dhir, qofkii beera markaasi kadib dhirtaas qofka uu beerayaa ka faa'iidaysanayo oo ta'kulu minhu ay wax ka cunaan tayrun, waa shimbiraha, ama insaanun bini aadamku wax ka cuno, aw bahiima ama xayawaanka ay wax ka cunaan. qofkii beeray falahu sadaqa, sadaquu ka helayaa. dadka badanaa sadaqada waxay ka fiiriyaan salaada iyo soonka iyo zakada iyo qur-aanka la akhrinayo. halkan marka dhirta oo la beerayo qofka sadaquu ka helayaa. waxaan kaloo kusoo gabagabeynayaa xadiis cajiib badan. xadiiskaas wuxuu tilmaamayaa qiyaamaha markuu dhacayo waxaa caqliga uu keenayaa, annaga caqligeena caadiga ah, haddii qiyaamaha la yidhaahdo nus daqiiqa ka harsan in salaada loo ordo qofka oo uu dhaho iyadoo salaad anoo ku jiro qiyaamaha ha igu dhacdo. qofna uu dhaho anoo qur-aan akhrina ha igu dhacdo qiyaamaha, ama qof uu dhaho anoo sadaqa bixinayo. rasuulka calayi slam waxyaab badan noo sheegay. wuxuu dhahay haddii qiyaamaha qofka uu ogaado in hadda uu dhacayo oo gacantiisa fasiila uu ku hayo. fasiila waxaa waaye iniin ama miro, weli waa miraha oo timirta. hadduu beeri karo qofkaasi uu ka gaarsiin karo qiyaamaha intuusan dhicin, falyafcalu dheh rasuulka, ha ka gaarsiiyo. halkaas marka waxaa fahmaysaa qiyaamaha dhicitaankeedii oo ay soo dhawaatay in cibaado laga dhigay, oo sida salaada iyo soonka oo kale dhirta oo la beerayo. lidalika halkaa waxaan ka fahmaynaa marka ahmiyadda ee leedahay dhirta in la beero, in ay tahay juz-u min addiin. marka diinteena iyadoo kooban wax kastoo wax anfacayo oo dhan ayay tilmaantay. marka dhirta oo la beero ama dhulka oo la nooleeyo waxay ka mid noqotay qayb ka mid a diinta. adoo sadaqa bixinaya ay ka mid tahay. waxay kaloo la mid tahay adoo ajar iyo thawaab shaqaysanayo cibaado ku jiro oo kale. marka waxaan dadka ku dhiirigelinayaa mashruuc kasta oo dhireen ah. marka waxyaalo fara badan oo fawaa'iday leedahay halkan aan ku taxaynin. nabadguurka ay ka hortegayso. hadayt waa soo sheegnay insaanka wax ka cunayo, xayawaanka wax ka cunayo. maaragtay waxaa kaloo fawaa'ideeda ka mid ah qurxinta. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu talagalay adduunka in la camiro. macnaha adduunka waxyaalaha uu ku camiray waxaa ka mid ah dhismaha iyo dhirta. marka intaasoo fawaa'id ay leedahay qofka mu'minkana ajr iyo thawaab ayuu ka helayaa. aqulu qawli hada wa astaghfiru lii wa lakum. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.